السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل وعنا وناكسن مدو وان كلا حبساني مشغول جرو أود وحن لو داقي دونا سدح جوهر الله سبحانه وتعالى ابن آدم كسي هدي أي سفي عن وفائد استانا وحيابو بدن أتوسي إيه سدح لتكودا وهدي أيسن كتغين أو أيسن اسكيلالين أي بربرينيان سدح دي هوري هذا بس هو دوادا intaan muuqaalka ku guda galin haddaan ugu cusub tahay nagu soo biir oo ka mid noqo walaalaha halkan aan ku midownay mahadsanid muuqaalkana sii share garee saddexda jawhar ee ibn aadamka alla siiyay maxay kala yihiin saddexda lidka ah ku ahse maxay yihiin nambarka koowaad waa caqliga noolaha oo dhan ma wada haysto ibn aadamka alla subhanahu wa ta'ala wuxuu siiyay caqli oo ku kala garto waxa xun iyo waxa wanaagsan qofka cadawgiisa iyo qofkaan cadawgiisa ahayn waxa uu u baahan yahay waxa uu u baahneen caqligu waxyaabo badan oo nolosha ibn aadamka ayuu maamulaa waxa uu caqligu sababaa idanka rabbi in qofkaasi wax curiyo wax fahmo maxaa lidkiis amarka waxa lidkiis ah oo ka soo horjeeda oo burburin kara caqligaas xanaaqu waxa uu lumiyaa caqliga waa lidka caqliga oo dhanba xanaaq qofkaas haduu xanaaqo waxaan laga filanay ayuu falaa sidaa darteed xanaaqu waxa uu lid ku yahay caqliga wuu suuliyaa qofka haduu xanaaqo caqliga wuu ka suulaa numberka labaad waa diinta Allah subhanahu wa ta'ala ciduu siiyo fahamsiiyo wili baanta aqriyadun cidii ku dhaqanta la baray fahamtay Allah subhanahu wa ta'ala darajo weyn ayuu gaarsiinayaa aqriyadun hadii aad tahay nin ahludiin waxaan ku leeyahay hambaliyo waxaan ku leeyahay cisiyo sharaf ayaa Allah kugu deeqay hadii diinta Allah ku baray ha iska diin diinta hadii Allah ku baray ha iska diin waa iga talo ku dhaqan diinta Allah subhanahu wa ta'ala ku siiyay Allah subhanahu wa ta'ala qofku jecel yahay diinta ayuu waafajiyaa waa xadiis nabiga sallallahu alayhi wasallam qofkii Allah khayr la doono in Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu diinta fahamsiiyo hadii Allah subhanahu wa ta'ala diinta ku fahamsiiyay الله خير يقول دون الله سبحانه وتعالى شكر الحمد لله ده قفك دينتي محا دهوعا دينتا وحالوميا وحيابو بدن بلسه مدك ugu daran waa xasadk balka waraado caalim oo alla cilmi ku siiyay ahlu ghayr ahlu diin oo cisi sharaf alla ku siiyay hada noqoto xasad ka war uqdad iyo xasad iyo ciila daaqabti ka war qof walba kula hadla dad ciishanta ka war hadan markii lagu yiraahdo sidan baa tahay ki xaasinimo iyo uqdad iyo ciil aqabtid ka waran maantay waxaan ku sifeysanahay kuwa wada xanaaqsan wada ciishoon wada cuqdad qaba kuwa aan doonaya in nin kale uu ka aarsado qofka haduu xasad yaqaano diinta kuma dhaqmi karo diinta qalbigiisa way ka suulaysaa waa ay suulinayaa xasadku diinta qofka wax xasda waa shaydaanka waxa uu yahay midka ugu dhagarta badan ibn aadamka markii la dhagrayo waa shaydaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayad badan ayuu ku leeyahay shaydaanku waa cadawgiina iska jira shaydaanku waa cadawgiina ugu weyn shaydaanku waa dhagar badan yahay marka waxyaabo badan ayuu ku adeegsanayaa shaydaanku si uu adiga kaaga raayo marka waxa laga baahan yahay inaadan shaydaanka taladiisa raacin oo mar walba shaydaanka iska fogeysid numberka saddexaad ee u dambeeya muxuu yahay camalka saalixa Allah subhanahu wa ta'ala camalka saalixa qofku Allah subhanahu wa ta'ala siiyo qof cibaado badan qof soonkiisa salaadiisa sadaqadiisa ay yihiin kuwa barax tiran kuwa nadiif ah istustus maradaadi ahaan ma sha Allah hambaliyan ku leeyahay waxaad haysataa jawharada kamida waa guuleysatay hadii aad sii wadid dadaalkan insha Allah ta'ala guushaad way sii sarmaraysaa soonka salaada sadaqada waxyaabo badan ayaa kamid ah waxyaabaha saalixa ama camalka saalixa waa adigoo salaada Allah subhanahu wa ta'ala u tukan istustus hal laga sheego waa adigoo marka salaada tukatid Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku mahdiya mar walba nimcaa heshid waa inaad ku mahaysaa camalka wanaagsan Allah subhanahu wa ta'ala wuu aqbalaa maxalid ku ah xantu waxa ay dumisaa dhammaan acmaashaada saalixa way la tagi saxaabadu waxay dhaheen nabi Allah hadan wuxuu ku sifeeyay sheegnan markaas wuxuu yiri waad xamatay macnaha qofka inaad wax ka sheegto
aad iyo aad baa looga wanaagsan yahay acmaashaada ayayna la tegaysaa. haddaba waxaan rajeynayaa muuqaalkan wax badan ka faa'iiday. haadaa wabilaahi towfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.